بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها شرفت على ملك استعدون كجوكتان الله سبحانه وتعالى دنبيجينا يدنبيج والدكنا دافو كسو دوادا برنامج كان كوبان وأن أوجه لدونه صون كان لحدة معلومات بيش شوال وحن أوجه لدونه دور قضبة مهمة ويكمديهن fadliga ay leeyihiin soonka lixdaas maalmood. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa maalinta ay bilaabanayaan soonka maalmahaasi. waxaan kaloo ka hadli doonaa sida loo soomi karo iyo sida loo kala qaybin karo soonka maalmahaas. qodobka ugu muhiimsan oo rabo inaan ka hadlo waxa weeye oo dad badan ay su'aalo iska weydiiyaan, qofka soon qalal lagu leeyahay sidoo u soomayaa ma wuxuu soo qalaynayaa soonkii qallaha ahaa ee lagu lahaa ma lixdii shawaal ayuu hormarinayaa mise waxa uu isticmaalayaa fikradda ah inuu niyada jamciyo oo uu soonkii qallaha ahaa ku aadisto lixda maalmood ee shawaal si uu qallahiina uga dhaco lixdii maalmoodna ajirkooda u helo. waa arrin aad iyo aad u baahan in mataqaanaa loo fahmo si ay cibaadadaada sax u noqoto. fadliga maalmahan walaalayaal waad ka wada dharagsantihiin. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man saama ramadaana ثم أتبعه 6 من شوال qofka sooma bisha ramadaan deetana raaciya 6 maalmood oo ka mid ah bisha shawaal kaana ka siyaami dahr, wuxuu la mid yahay sidii soon sanadka oo dhan ah. allahu akbar. waa 6 maalmood oo aad raacisay bishii barakeysneed ee ramadaan, markaasi waxaad helaysaa ajirka sanad oo dhan soonkiisa. waa cibaado aad iyo aad u kooban laakiin ajir aad iyo aad u weyn leh. soonka maalmahaasi goormay bilaabanayaan? waxay bilaabanayaan maalinta ciidda maalinta ku xigta. dadka qaarkood labada ciid ayay isku khaldaan. ciidul adxaa ah ciidda carafay soomaalidu u taqaano oo 3 maalmood ah, iyo ciidal fitri oo ka dambeysa bisha ramadaan ayay isku khaldaan. ciidda ka dambeysa bisha ramadaan waa hal maalin, waa maalinka la ciidayo oo kali ah. maalinkaasi marka ay dhammaato maalinta ku xiga ayay bilaabanayaan qofkii raba inuu soomo bisha shawaal. sidee loo soomayaa? qofka waxaa u bannaan inuu soomo sida uu doono. bishaasi uu ka soomo 6 maalmood. maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam ma uusan sheegin qaab gooni ah oo loo soomayo. wuxuuna yidhaahday thumma atbaca 6 min shawaal. waa 6 ka mid ah bisha shawaal. marka taasi macnaheedu waa maxay? waxaa kuu bannaan inaad 6 maalmood israacisid 1 2 3 4 5 6. waxaa kuu bannaan inaad kala qaybisid maalin 2 soontid, maalin 3 soontid, maalin 4 soontid, maalinta kale aad hal maalin ka afurtid, maalin kale ka soontid. adiga almuhim waxaa lagaa rabaa 6 maalmood inaad ka soontid bishaas. qofka soon qalla lagu leeyahay, arrintani waa arrin aad iyo aad muhiim u ah, dad badanna ay ku wareersan yihiin. qofka soonka qallaha lagu leeyahay ma soonkii qallaha ahaa ayuu ku bilaabayaa uu soo celinayaa? ma 6 maalmood ee shawaal ayuu hormarinayaa? mise waxaa u furan inuu niyadda jamciyo oo uu isku dhex daro, uu hal dhagax 2 shimbir ku dilo oo la jeedo inuu yidhaahdo waxaan niyeysanayaa soonkii qallaha ahaa, waxaana ku aadisanayaa 6 maalmood si qallahana iga dhaco 6 maalmoodna ajirkooda u helo. walaalayaal, marka koowaad waxaan baraarujinaynaa qofka soon qalla lagu leeyahay inuu marka hore ku degdego inuu soo qalleeyo qallihii lagu lahaa oo iska bixiyo deyntii ilaahay subxaanahu watacaala ku leeyahay. maxaa yeelay xadiidka wuxuu ahaa wadaynullaahi axaqu bilqadaa, deynta ilaahay ayaa mudan, waajibna ah in la soo celiyo. marka qof deyn lagu leeyahay waxaa u bannaan inuu soo celiyo. haye adigoo markaa qalla lagugu leeyahay haddii aad ka soo hormarisid oo aad tiraahday qallihii dib baan u dhiganayaa 6 maalmood oo shawaal ayaan soomayaa, arrintaasi ayaduna sax miya? culummada way isku khilaafeen, laakiin sida saxda ah waa khalad in aad qallihii dib u dhigtid oo aad ku bilowdid 6 maalmood ee shawaal. maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa wuxuu leeyahay man saama ramadaana thumma atbacahu 6. qofka sooma ramadaan dabadeedna raaciya 6 maalmood oo ka mid ah. marka waa qofkii sooma bishii ramadaan ee soo dhammaystay. adiga ayaan su-aal ku weydiinaya, billaahi calayka, soonkii waxaa kaa tagtay 3 maalmood ayaa kaa tagtay. waxaa lagu weydiiyey bishii ma soo soontay ramadaan? markaasa waxay tiri maya, waxaan ka soo soomay 27 3 maalin baa lagu leeyahay.
maadan soo soomin bishii ramadaan. xadiidkana muxuu leeyahay man saama ramadaan. haddaba si aad shuruudaas u buuxisid waxaad ku qasban tahay intii lagugu lahaa in aad soo buuxisid, kadib ayaad soomi kartaa 6 maalmood oo shawaal si aad ajirkooda u heshid. qodobka kale oo muhiimka ah oo aad iyo aad muhiimka u ah oo aan rabo inaan dadka ku baraarujiyo waxa weeye ma iga ansaxaysaa in aan hal niyad ku wada jamciyo labadooda? jawaabtu waxa weeye waa maya. sababtuna maxay tahay? cibaadooyinka ayaa laba loo qaybiyaa. cibaado maqsuudatun lidaatiha, cibaado sideeda ayada ah la iska rabo, iyo cibaado ghayra maqsuuda ah, cibaado aan la iska rabin ayada naftirkeeda. laba tusaale ayaan ku siin doonaa si aad u fahantid. tusaalaha ayaa wax lagu fahmaa. salaad subax waxaa ka horeysa 2 ragcadood oo sunno ah. salaad subaxna waa 2 ragcadood. marka haddii aad tiraahdid salaadii maalan tii sunnaha ayaan gelayaa, waxaan niyeysanayaa 2 ragcadood oo sunnaha ahaa, sidoo kalena waxaan isla markaa niyeysanayaa 2 ragcadood oo fajirka ah, hal dhagax ayaan 2 shibir ku dilayaa. arrintaasi adaan ku weydiiya sax ma tahay? waa maya. sababtu maxay tahay? labadaa cibaado midna sunnada tahay midna waajibka tahay waa 2 cibaado oo kala madax bannaan, mid walbana goonideeda la iskaaga rabo inaad niyad oola timaadid. dhinaca kale waxaa jira cibaadooyin isdhexgala oo hal niyad kaaga filan tahay. taasi waxaa la tusaale ah maalan masaajidka marka la soo galo waxaa la tukadaa 2 ragcadood oo la yidhaahda taxiyatu lmasjid. marka 2 ragcadood ee la tukanayo ayagu qudhoodu uma ahan yool, uma ahan yacni layskama rabo, waxaa layska rabaa inaad tukatid. marka waad soo gashay masaajidka ayaa soo gashay, waxaad tukatay duhur. 2 ragcadood waxay soo hoosgalayaan duhurkan, maxaa yeelay 2daasi ragcadood ayaga la iskaagama rabin si gooni ah, niyadna la iskaagama rabine waxaa la rabay in masaajidka aadan fadhiisanin ilaa aad tukatid. marka waxaad tukan kartaa salaad kasta ayaa booskeeda buuxin karta. waxaan filayaa in la fahmay. marka soonka qallaha ahaa ee lagugu lahaa waa waajib. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kugu waajib yeelay maadaama aad cudurdaar sharciga lahayd oo bisha ramadaan aad afurnayd. marka waa cibaado madax bannaan oo lagaa rabo inaad niyad oola timaadid oo aad qalle ahaan oola timaadid. 6 maalmood ee soonka bisha shawaalna waa cibaado gooni ah oo ayadana lagaa rabo inaad niyad la timaadid. marka lama jamcin karo. arrintaasi ha lagu baraarugsanaado. dad badan ayaa ku sirma oo ku khaldama. marka arrintaasi waa arrin muhiim ah. si ay cibaadadaada sax kugu noqoto waxaa waajib kugu ah mar walba inaad ogaatid waxa la iska rabo. الله سبحانه وتعالى waxaan weydiisanayaa dambigeena iyo dambiga waalidkeena inuu dhaafo. Allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanayaa inuu cibaadada naga aqbalo. Allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanayaa inta xanuunsan inuu caafiyo. Allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanayaa walaalaheen naga hormaray ee dhintay inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala u naxariisto, jannadiisana geliyo, annagana gadaashood uusan fitnaynin. waa walaalkii Naasir Cadceed oo idin leh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.